waxaan goobjoog u ahaa allah u naxariisto xildhibaan aamino habeenka ay dhimanayso goobta ay ku dhimanayso qaraxa uu ka dhacayo iima jirin aamino xaqiiqatan 11 tallaabo 12 tallaabo iima jirin waxaa ilaahay igu badbaadiyey gaari beeba ah oo saksoon ay u yaqaanaan qolada amisomta jabuutiyaanka xaggana joogta ay wateen oo aanay waxba karin ayaan ku aadanaa nin ex xildhibaan ahaa allah u naxariisto goobta ku dhiman doona ayaa gacantayda haystay oo aan markaas hayo waaya ninka aad la hadlayso dhammayso intaan kuu taagnaana hayga tegin ile oo aan rabnay inaan gudaha xarunta maamulka markaas joogeen xilli doorashaa lagu jiray qoladan hirshabeelle ay deganayd aan rabay inaan galo marka hayga tegin yiri waa soo raacayna markuu yiri iyo marka qaraxu dhacay laba ilbiriqsi uma dhaxin hal maraa dirhan yeeray habeen madowna way ahayd runtii saacadu meeqad ku qoyay waa adii 2 saac ma leeyahay aniga gaariyaan watay xarunta saldhigga degmada beledweyne ayaa doorashada darteeda waxaa nalaga gooyey magaalada inteedii kale taa laga jaray wixii ka sokeeyay goobo ganacsi oo ku yaala iyo xarumihii maamulkii waxaas waa in ama qof sarkaala ama qof maamulka ka tirsan uu ku soo daayay gaarigaygii aan watay inta gobolka uma rabin ba awalba uma soo socon meel ganacsi aan u socday ma ku daynaynay dhahaan waraasee ii celinaysaan meeshaan ganacsiyaan raba maya amara nala siiya adeer cali hanagu adkaanin ma ku sii daynayn meeshiaan baabuurkii uga soo tegay waxaan is idhi dadkan dhaawacmay haddii la qaado baabuurkaygiyaa waddadii yaalla waa orday baabuurkiiaan waddadii ka qaaday si aan uga qaado baabuurtii dhaawaca waday markaan ka leexday oon gadaal uga baxay ay gudbeen waxaan go-aansay inaan gurigayga iska aado iska hoydo waa daba kacay isbitaalka magaalada iyo saldhiggana waa isku dhegan yihiin shirkadda hormuud albaabkeeda markaan baabuurkii la maraayana qarax labaada igu dhacay oo baabuur ah kii hore qofuu ahaa aamino lagu dilay sax kana waa baabuura loogu talagalay lacalla hadday dhaawaca ka soo badbaado in lagu qarxiyo kii labaada haddana igu dhacay waa sax baabuurkii aan watay kor inta u qaadnay oo dhul ku dhacay shirkadda hormuud dhammaan guriga muraayadihiisii hal xabo ugama harin ilaahay qadartii baabuurkaan watayna muraayadihiisii xataa waxba ma gaarin laakiin saldhiggii goobtii oo birtu taallo baabuurkaygaan ka soo horqaatay meel walba oo qof ciidana joogay xabaduu nagu bilaabay nin walba xabaduu iska bilaabay anigii meeshii bartankeedaan dhex taaganahay ugu yaraan 5 daqiiqa ka badan 7 daqiiqa ka badan markii xabadii socotay uuradiina ay istaagtay uura markii hore macal aniga iimays jeedin iyo baabuurkayga uura qarinays ayaan baabuurka daaqadiisa iska furay derbigan ku soo dhaqaaqay kadib aan nin wiil yaroo dhallinyarahoo ciidanka ka mid ahaa ninkii celiyey maqribkii celiyey ahaa ayiri war ka daaya xabadda adeer cali waa nabad qaba markii horena waxay lahayn baabuur qarxay baabuurkii cali waay intuu ku jira qarax labaad intuu ku jira wuxuu ii jiray wiilkan suudiya ku jiro kale intee talaabo adiga waa 3 talaabo maya waa ka badan tahay waa adiga 10 talaabo camal iyo 11 talaabo meelahaas camal waan gartay intaan ka bixin qaraxii xildhibaan aamino ay ku dhimatayna adiguna waxaad ahayd dadkii goobjoog ahaa ee aadka ugu dhawaa kaasna halkii ayuu kuu jiray kuu sheeg waxaan ku yidhi aamino iskuma jirin 8 tallaabo iskumaynaan jirin 8 tallaabo iima jirin marka xildhibaanad aamino inta qaraxu dhicin xaaladdu sideed ma arkaysay inay meesha joogtay maya ma arkaynin aamino waxay ka soo baxday meel qolada saraakiisha ciidamada ay deganaayeen ay ka soo baxday qolo musharaxiinana ay wax ka degeen oo la dejiyey ay ka soo baxday laakiin baabuurteeda waa u jeeday baabuurba ma wadan waa lugeynaysaa ayadii staafka la socdayba waa lugeynayay runtii meesha aan raba inaan galay ayadana usoo socotay inay gasho ujeed ku ahaa ninkan isqarxinaya gudaha loo soo geliyey barnaamij laga soo shaqeeyo iska ahaa marka qadartuna ahayd inay ku dhimato ayada iyo intii kale la dhimatay ninkii isqarxinaya iyo xildhibaanad aamin inta ay isku jireen ma qiyaas kartaa ma arki kartaa markuu isqarxinaya intaan iyo adiga aan isku jirno kale aad ugu soo dhawaad sax meesha dadkii joogayna saxmadeeda iyo
dadkii oo dhan wax dhintay wax dhaawacmay la wada noqday walibana goob maqaayada u dhoweyd ilaahay dadka waxba kuma yeelin goob maqaayada oo shaahi laga cabaa xataa u dhoweyd ilaahay waxba kuma yeelin dadka inta badan dhaawacyo ma ogi